dalada joojinta iyo xakamaynta gudniinka gabdhaha ee heer qaran ee Nefis Network ayaa maanta tababar uga furay magaalada Boorama 30 xubnood oo ka kala socday bulshada noocyadeeda kala duwan waxaana lagu baranayay sidii wax looga qaban lahaa tacdiyadaha ka dhanka haweenka tababarkan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay Xasan Maxamed Cabdi oo ah madaxa mashaariicda ee Nefis Network wuxuuna ka waramay ujeedada tababarkan tababarkani wuxuu ku saabsan yahay tacdiyada ka dhanka haweenka iyo gudniinka gabdhaha waxa iska kaashaday oo qabanqaabadiisa lahaa hay'adda UNDP iyo dalada xakamaynta ama la dagaalanka joojinta gudniinka gabdhaha ee heer qaran ee Nefis Network tababarku waa 2 cisho insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaynu macluumaad aqoon qarsiya aynu isku weydaarsano waxaana rajaynaynaa tababarkaasi waxyaalaha ka soo baxa iyo wixii aynu ka baranaba inaynu insha Allah kula noqon doono bulshada iyo xafiisyada aynu ka nimid isla markaana aynu ku rajaynaynaa inay wax ka qabato hawlaheena shaqo ee quseeya tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo gudniinka gabdhaha waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Mustafa Muumin iyo gabadh ka socotay wasaaradda cadaaladda gobolka Awdal wasaaradda cadaaladda ka socdo oo barnaamijkan gudniinka fircooniga iyo tacadiin ka xadmooda inuu soo yaraanayo in la isweydaarsado laga doodo xal loo helo oo waxyaabaha muhiimka ah ee maalmaha soo socda aanu wada joogno hadii ilaahay anoo ka wakiila isduwaha wasaaradda caafimaadka ahna mashruuca EBHS kala yiraahdo ama asaasiga coordinator kiisa waxaan inagu soo dhaweynayaa furitaanka trainingka maalmaha soo socda hadii ilaahay aad ka doodi doontaan qaybta loo yaqaano female genitalia mutilation ama FGM Soomaali marka loo turjumo la yiraahdo gudniinka fircooniga tababarkana wuxuu noqonayaa mid sare loogu qaadayo aqoonta bulshada noocyadeeda kala duwan ee tacdiyadaha ka dhanka haweenka dhanka kale maayirka degmada Baki ee gobolka Awdal ayaa shaaciyay in abaaro baahsan oo saameeyay dad iyo duunyo ka jira deegaanada degmada Baki sida uu TV-ga qaranka u xaqiijiyay maayirka degmada Baki Axmed Maxamed Caateeye inay abaar ballaaran oo baahsan ka dhacday gobolada galbeedka سيبت دقمة بكي أنا مسؤول جاي دتكو waxay gaareen inay xoolo markay dhamaadeen tuulooyinka ku soo ururaan inay tuulooyinka ku soo ururaan barakacay waxa kale jira dadka waxay wax waaleen oo ka gata male dadku way dhinteen xoolo way ka dhinteen boqolkiiba 20 baa haray xoolaha marka haween dadku waxay doonayaan kulba degdega waxaan u sheegay gudoomiyaha gobolka madaxda qaranka ee ka sii sareysa hay'adaha gudniinka waxa uu in dadkaas kulba degdega laga soo gaaro xaaladda loo kurgalo oo san la soo diro Imran Afi TV-ga qaranka Boorama